haddaba waxa uu soo baxday gabadhaas inuu gaf ka galay, gabadha dartii ay u dhibaatootay, dhaawacyo uu arkayo gabadha ay ku dhaceen, nolosheedii isbedel uu ku dhacay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabtaydii waa mar kale walaalkeen Axmed Xirsi. waxaan wali ku guda jirnaa la talinta asxaabta aan la talinay iyo dhiirigelintii aan dhiirigelinayno walaalaheen. isla inta ku guda jiray soo tabintii maasooyinkii ama dhiirigelintii ama la hadalka walaalaha waxay la soo xiriiray wiil asxaabta igu xidhan kamid ah. wuxuu ila wadaagay qiso aad u xanuun kulul ama daran oo ku dhacday isaga. qisadaas wuxuu iga weydiiyay talo ana intaan talada degdeg aan u siin waxaan weydiistay inaan waqti u siiyo kadibna aan la wadaago asxaabta talada ay ku gartaan iyo taladayda marka la isku daro ina maxay hayde ay talo u noqoto. waxaan ila wadaagi doonaa qisada koobaad si u dhacday kadibna waxaan ni weydiisanayaa inaad la soo talisaan taladana waa inoo muhiim. haddaba qisada waxay ku bilaabatay sida tan. wiilkan wuxuu dhahay mar ayaan caawiyay gabadh Soomaaliyeed si walaalnimo caawiyay kadib gabadhii asxaabnimo iyo macrifo ayaan dhex martay, dad isku dhow ayaan noqonay, telefoonada ayaan kala qoranay, waan isla xiriiri jirnay, mararka qaar waan isarka jirnay, kadib waxaan noqonay asxaab ayaan noqonay. isla markaa wuxuu dhahay wiilkaas anu nolol kale aan iskaga jiray oo waqti u maanhayn gabadhaas inaan waqti inta ka sii badan ama walaaltinimo wax ka badan inuu dhex maro waqti u maanhayn. qof iska daayar wali waqtigiisii socdo waqtigun u macaayahay ayaan ahaa. isla gabadhii wanaagii u sameeyay iyo asxaabnimadii dhex martay iyo de wanaagii markasta wax u baahato aan caawinayay iyo garab joogay gabadhii waxay bilowday inay qaado dareen jacayl. gabadhii wiilka ay u sheegatay, wiilkiina waqti u muhayn ama nolol kale iskaga jiray ama waqtiga ay kala diyaar u muhayn inuu gabadhan uu xiriir la sameeyo. gabadhii wiilka ay daba carartay, wiilkiina gabadha ka cararo bilaabay inay meesh kasto jooga ay tagto nolosha adu inay in badan daba cararto. gabadha jacayl daran ayaa ku dhacay, wiilkiina isagoo hadeed uu ka goostay, noloshiisa ayuu dhinac ka maray. muddo kadib sanado laga joogo wiilkii dib ayuu isku xisaabiyay. wuxuu dhahay xisaab ayaa naftayda la xisaabtamay, maxaad qaladaad gashay, qof waxaa noqday in aqligiisu taam yahay, wixii qalad uu galay wixii gafa kala garan kara. haddaba waxa uu soo baxday gabadhaas inuu gaf ka galay, gabadha dartii ay u dhibaatootay, dhaawacyo uu arkayo gabadha ay ku dhaceen, nolosheedii isbedel uu ku dhacay. kadib gabadha ayuu raadiyay, meeshay deganeed ayuu tagay. waxa lagu dhahay gabadhaasi way ka tagtay magaalo kale ay tagtay, telefoonadii iyo meelaha ka wada xiriirayeen way wala bedeshay, way iska daysay. magaaladii ayuu qarar qaatay inuu kaga daba tago, uu safray. qisadii gabadha marka looga dhacay wuxuu ku dhacay iyo say jacaylka ula dhibaatootay iyo dhibtii ku dhacay uu ka daba tagay magaaladii. muddo ayuu raadiyay, meelaha qaar wuxuu arkay magaalada laga garanayo oo la leeyahay kan kii hiblaysan u galay magaalo uu qofna ka garaneyn. markuu saa u tagay inuu noqdo qof laga garanayo magaalada caanka ah. gabadhii ayuu raadiyay, gabadhii aad way dhibsatay inuu la kulmo, isdabajiid aad way la kulantay. oo ka cudur daartay gabadhii, wuxuu ku dhahay walaalay bari waqtigaas waxaan socday, waqtiga noloshayda ayaan socday, xiriir kaagana diyaar uma nahayn, inaan dhaawacantay waan maqlay, inaan sidaa kala samayso waan maqlay, sidaa inaan noqoto waan maqlay, intaana waan ugu soo joogay. maantana qaladkaygii inaan qirto dartii ayaan safarka u soo galay, intaa dadana ku soo weydiiyay oo ku daba socdaa. sheekadii waxay socotaba adu gabadhii wiilkii haya ayay ku dhahday inay xiriir dib u yeeshaan, dhaawacii iyo dhibaatooyinkii gaadheen inuu ka bedelo. waxaan ka soo booday isla gabadhaas markuu saa ula kulmay, wuxuu la kulmay gabadhii oo qayrantay, madoobaatay, gabadhii uu bariga hore yaqaanay iyo gabadhan ay wada kulmeen inaan isku qofahayn, shakliyan inay isbedeshay, moral ahaan niyad jabtay, qof kale nolol kale qof kale oo isbedelaba inay uu la kulmay. kadib halka wuxuu qarar ka sii qaatay gabadhan inuu garab joogsado, dhaawacii iyo wixii ay tabanayso dhan inuu wax kala qabto.
xiriirkooga ayaa bilaabmay in muddo ayuu socday isku magaalo maahayne uu u safrayay magaalada ayuu tagay gabadhii marka ay dareentay ninkii inuu xiriir jacayl lugta la soo galay jacayl dareemay waliba jacaylku wuxuu dareen yahay marka aad xisaabsanaysa qaladaadka aad samaysan kal maxaad ugu samaysay su'aalaha isku weydiinayso su'aalihi ayuu isku badiyay wiilka ayaa xiriirkii isaga serious u noqday oo xiriirka si dhaba u qaaday adi jacayl ayaa wiilkii galay gabadhii markay aragtay wiilkii inuu hadiisoo leh isaga halkii ay markii joogto uu joogo gabadhii waxay ka xiratay telefoonadii iyo Facebook iyo meesha ka wada xiriirayeen dhaawac adag ayaa wiilka soo gaaray markasta uu safraa magaaladii ay deganeed ayuu tagaa asxaabta ay ku ballamisaa asxaabta wiilka markay la kulmaan waxay ku dhahan halkan ay kuugu imanaysaa kadibna looma soo baxo dhowr saacadood ayuu halkaa joogaa markuu laamo magaaladii haddana waa lala soo xiriira waxa la dhahaa imika ay kula kulmaysaa marka loo soo laaban markuu meeshii tago haddana looma tagaba dhowr saacadood ayuu darbiga taagan yahay isla xaaladda ayuu hadda ku sugan yahay gabadhii ayay kaga caddahay ama ay ka haysataa inuu xiriirkeega joogteeyo gabadhiina waxay samaysay aargoosi inay hadda ay ka aargoosanayso hadba ay ballaminayso kolba meeshii markuu tagana ay koos qaadayso qisada aadka u xanuunka badan la ayuu wiilka la soo wadaagay waana asxaabta igu xidhan kulli hadda uu daawanaya ama uu dhageysanayaa taladiina ayuu u baahan yahay talo ayuu u baahan yahay qisadana waa qiso aad u xanuun badan qofka lagulama talin karayo iska daa bedel way qof jacayl hayo ama qalbigiisu wax dareemayo waxaad adigu arkaysi ma arko talo ayuu u baahan yahay la soo taliya niko raaliya commentiga kula soo taliya qisadana cidii kale xallin karta ama tala siin karta tala walaalnimo taladu iyada kugu nool adaa ku nool iyada kugu nool marka tala walaalnimo maalin ay adiguna talo u baahan doontaa taladaas ay wiilka ay soo weydiistay inkuna waxaan jeclahay inaad ka soo falcelisaan si ay ugu noqoto dhiirigelin ama qalbi qabowsi inuu walaal leeyahay ama inay dad kaargareynaya ay joogaan taladiinuna waa noo muhiim commentiga inoogu reeba YouTube-kana hadduu nigu cusub yahay walaal subscribe-ka xagiina waxa kama aha waa iska bilaash lacag niguma joogo anakana waa noo dhiirigelin asxaab badanna waan ku gaadhaynaa videoga xigana kolley waad arki doontiin sayn intaa oo dhan ba aan u wada soconno subscribe-ka inoo saara wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu